بسم الله magacaygu waa Madax Xuseen Saleebaan waxaan ahaa musharax u taagan kursiga lambarkiisu yahay Hob 37 oo ay u tartamayeen 15 qof 15kii qof Buurmada wuxuu kala soo dhex baxay inantu adeerka u ahaa ciidana wuxuu kaba ergeynaysaan waayo inantayda ma siinaysaan codka halkaas naga mara afcad wuxuu yiri tartan ma galaysid buu yiri banaanku nooga saar 15 qof baan ahay inantiisuba kala dhex baxa sharaf darrada inta leeg maanta inta markuu sameeyay boobka inta leeg kursigu boobay ayuu hadana beesha maxamed Abakar saddexdoodi kursi ay golaha shacabka ku lahaayeen faragelinta uu maxamed ku hayaa sidoo u boobo oo dad maqaar saar oo isagu doonayo uu rabo ay maxamed ugu tagaan halkaas wuxuu doonayaa musharax kasta madaxweyne oo jagada madaxweyne u taagan inuu horgeeyo ka iibsado dhaho maxaa la dhahaayeen intanan baan hayaaye afgaro waa musharax kasta madaxweyne wuxuu doonayaa inuu u iibgeeyo waxaas maqaar saarka ayaan cid soo dooran isaga waji ku yimi maxaa la dhahaa wajigiisa ayuu doonayaa oo yahay afgaro oo musharax kasta maalinba musharax buu tagay madaxweyne uu leeyahay anaa waa ku dhisaya waa ku taagan anaa ku dhisaya Buurmada Muqdisho wuxuu ka dhex wado reer Muqdisho ma garanayaan laakiin way garan doonaan maalin dhow cadaalad darradu samaynayo ra'iisul wasaaraha Mudane Xuseen Maxamed Rooble waxaan leeyahay ra'iisul wasaare boqor Buurmada haddaad baratay laakiin waad baran doontaa maalin dhow dhibaatadu soo wado ayaa ka badan dadka cadaaladda ka sugaya Buurmadow ha kaga qo ana tusaale u ah anoo munaaba tusaale u ah Buurmadow oo yiri ma tartami kartid anaga 15 qof oo yiri ma tartami kartid maxaa la dhahaayay 15 qof ma tartami karaan inantayda bas ba tartamaysa kursigan maxaa la dhahaa lagu dooranaya cadaalad darrada inta leeg aan ka tirsanaynay haddana habar jeclaynteedii kale oo haddana doonaya maxaa inuu ku sameeyo isaga iyo tiimku wato qof kasta ay khusayso inuu arrinka wax ka qabtaan doonaynaa oo ra'iisul wasaaruhu horeeyay isaga doorashada damaanad qaaday ra'iisul wasaare Rooble isaga doorashada damaanad qaaday inuu hawsha wax ka qabto Mahdi Guuleed inuu hawsha wax ka qabto Cabdi Xaash inuu hawsha wax ka qabto cid kasta ay khusaysan hawsha wax ka qabto aad baan idin salaamaya أنا